agaasimaha waaxda baadhista iyo kormeerka wasaaradda maaliyadda Khadar Maxamed Cabdi ayaa maanta khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay fagaaraha khayriyada Togwa Jaale waxaanu dadweynaha degmada Togwa Jaale uga mahad celiyay sida quruxda badan ee ay u xuseen una weyneeyeen munaasabadda maalintani qaran ee 18 May oo ay reer Wajaale si aan hore loo arag iskugu soo baxeen fagaaraha khayriyada Wajaale waxa kale oo agaasimuhu salaan u diray madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilayo iyo marwadiisa agaasime Khadar Maxamed Cabdi waxa uu yiri waxaan ugu salaamayaa dadweynaha reer Togwa Jaale ganacsatada mas'uuliyiinta degmada Togwa Jaale sida wanaagsan ee quruxda badan ee aad maanta ee 18 May waxa kale oo leeyahay Soomaaliland ha noolaato Soomaaliland ha noolaato madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ha noolaado haranka Soomaaliland ha noolaado walaalayaal waxaan aad ugu mahadnaqayaa sida quruxda badan ee aad ugu soo baxdeen maalinta qiimaha iyo qaayaha leh ee aynu facalin waa maalin qiimo iyo qaayo badan inagu leh waa maalintii Soomaaliland ee calanka iyo gobonimada ay taagtay 1999 waa maalintii aynu ka baxnay lugtiga waa maalintii aynu calankeena suubane iyo saawihii aynu laabnay waa maalintii aynu gacanta u dhignay gobonimada inta badan u sabraynay walaalayaal waxaa kaloo halka ka salaamaya golayaasha qaranka waxay ummadda shacabka reer Soomaaliland meel kastoo ay joogaan gobolada sida fiican ay u dabaaldegayaan waxaan leeyahay ummadda reer Wajaale waxay kala qayb qaadatay farxadda iyo reereynta sanad guurada 3 dabaaldega 3 walaalayaal halkayga badin maayo waxaan leeyahay reer Wajaale ha noolaadeen